maanta ay bishu tahay 6dii bishii afraad 2022 waxaan ku sugannahay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaan ka soo socdaalay ama aan ka soo safarnay xaruntii ama caasimadii dalka xarunta wasaaradda hawlaha guud ee Hargeysa halka waxaan u nimi shaqadaas waxaan ahay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta sidoo la wada socono wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta mandate-keedu waxa weeye runtii dhiska iyo isku dubaridka iyo dabagalka mashaariicda dhisme iyo guryo iyo dhul ee qaranku iska leeyahay inta dabadeed halkan waxa laga sameeyay sanadkii 2019 sida filayo master plan-kii magaalada Gabiley oo ah qorshe magaaleedkii magaalada Gabiley runtii agaasimayaashii guud ee wasiiradii xilliga joogay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa master plan-ka marka master plan la sameeyo magaalo kasta waxa ka dhashay mashaariic iyo baahiyo iyo asaasiyaad loo baahan yahay asaasiyaadka master plan-ka waxa kamid ahaa markii la eegay magaaladu xageebay u fidi kartaa sidee bay u fidaysaa afarta jihe ee magaalada maxaa chance ka jira qofkii raba inuu waqooyiga magaalada dego ama dhul ku leh kii koonfur ku leh kii bari ku leh kii galbeed ku leh marka aynu nidhaahno waxa ay waqooyiga magaalada uma fidi karto runtii ah dhul weyn oo baaxad ah oo ballaaran oo si qurux badan ay magaalada ugu fidi lahayd dawladda dhexe iyadoo kaashanaysa aqoon-yahanadii iyo experience-kii wasaaradda hawlaha guud oo ah injineero iyo farsamo yaqaano ka tirsan wasaaradda waxa halka ka soo baxday in loo baahan yahay in bridge loo sameeyo magaalada bridge-kii waa la qiimeeyay waa la design gareeyay wasaaradda maaliyadda qarankuna waxay ku dartay budget-kii sanadlaha ahaa 2021 iyo 2022 iyadoo laba face loo kala jabiyay dhammaanteed lacagta ku baxday bridge-kan waxa laga bixiyay khasnadda dhexe ama maaliyadda ama cashuurta muwaadiniinta reer Somaliland baa laga kofargareeyay waxa hay'adda inaga caawisay waxa inaga darsaday wax donors wax inoogu daray wax ganacsato wax inagu biiriyay ma jiraan dhammaan waa budget ka baxay khasnadda dawladda dhexe waxa miisaaniyadda bixisay ama fangaraysay hay'adda qaranka u qaabilsan maaliyadda iyo budgetka ah hay'adda wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa farsamo ahaan u dhistay ama gacanta ku haysa wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta miisaaniyaddeedana ay ku jirtaa supervision-keedana gacanta ku haysa waxa ku baxday lacag ku dhow $700,000 runtii mashruuca waa loo tartamay 23 shirkadood oo muwaadiniinta reer Somaliland shirkadahooda ah soo xareystay marka la isku soo ururiyo bridge-ka awoodiisa capacity-giisa shaqadiisa miisaaniyaddiisa farsamadiisa dhammaantood waxa iska leh dawladda dhexe ilaa xayisiintiisa waxa halka ka muuqata in dawlad ahaan runtii maalinta ka dambayso aynu wax badan accessible u noqonayno ama aynu capacity u yeelanayno bridge-da noocan oo kala dad fara badan baa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inayna dhisi karin bridge-ka maanta qurux badan iyo wanaag badan baa ka muuqda inta hadda idin muuqata 4 mitir in la mid ah aasan taas waxay cadeynaysaa in bridge-kan uu capacity leeyahay wax walba oo culaysa ama tan ah oo wadankeena yaala marka hore asaasa loo qaatay design-ka waxa sameeyay engineer Xamse iyo cidii ka caawisan oo uga mahadcelinayna supervision-kan labadeeda engineer ee noo jooga gobolkan engineerna uu yahay engineerka guud ee bridge-da wasaaradda u qaabilsan baa runtii aad u supervise gareeyay dawladda hoose Gabiley iyo barasaarka gobolka Gabiley iyaguna aad runtii wixii banayn iyo site clearance iyo soo jeedin ahayd ama waxaan uga baahnay inay naga qayb qaataan iyaguna way naga qayb qaateen site clearance fara badan baa la sameeyay dhismaha faraha badan ee technical-ka ay inooga shaqeeyay engineer Xamse baydana meesha ka dhacday waxaan halkan ka cadeynaynaa haddaan wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta dawladdu waxay survey oo customer service bay bixisaa cidda customer-ka oo ah ama client-ka oo ah ama waxa la yiraahdo customer-ka oo ah iyo dadka ay wax siiso waa shicibkeen reer Somaliland meel kasta joogaan waxaan halka ka cadeynaynaa shaqadiina loo igmaday ama shaqadiina loo diray ka dawlad dhexe ahaan inaan waxna ku guda jirno waxna ku guuleysanay wixii kale noo hadhana insha Allah aan rajeynaa inaan ku guuleysano maantana halka oo inoo marayo uu noqonayo bridge-kii ugu saameynta badnaa ugu capacity-guna uguna waqtiga yaraa xilliga uu socday haddana waqti yar oo aad u yar aan rajeynayna ka bacdi haddii Ramadaan baxdo sidaan filayo in xariga laga jari doono ilaa madaxweynaha qaranku imaan doono biidnillaahi kariim haddii Ilaahay nagu simo